innagu basharka waxaan maanta ku qiimaynaynaa waxyaabaha isheennu ay qabanayaan laakiin shareecadu qofka waxay ku qiimaynaysaa iimaanka iyo yaqiinta iyo ikhlaaska iyo taacadda iyo xidhiidhka addoonku ilaahay uu la leeyahay taabay shareecadu qofka bini aadamka ku qiimaysaa zaahir binu xiraam radiyallahu anhu saxaabi la oran jiray magaalada madiina ma deganina miigeegu deganaa markuu miiga imanayo magaalada uu soo socdo hadiyadaha miiga laga soo helay buu nabiga u keenay jiray hadiyad caanaha ama subaga ama malabka ama hilibka waxyaabaha nabiga u keenay jiray sallallahu alayhi wasallam markuu isaguna magaalada madiina uu ka caraabayo reerkiisa ku noqonayana reemiigu waxay magaalada uga baahdaan buu nabigu markaa isagana u diyaarin jiray طبعا dadka reemiigu magaalada maxay ka qaataan sonkor iyo saliid iyo bariis iyo zamankana wixii miigu magaalada uga baahan yihiin ayuu nabigu magaalada madiina uga diyaarin jiray markaa buu nabigu oran jiray inna zaahiran baadiyatuna wa nahnu haadiruhu ba nabigu oran jiray kaleey salaatu wasalaam ninkan zaahira waa reemiigayagii annaguna reer magaalkiisii baa nahay buu rasuulku oran jiray waliba nin wuxuu ahaa ضعيفة مسكينة ريمي magaalada madiina mararka qaarkood isagiin rasuulka ayaa masjidka dhexdeeda intay ku haraan bay ku sheekaysan jireen markaa buu nabigu miiga nolosha miigu ka wareysanayay ku dhaqmaan waxay ku dhaqmaan caadaadkooga maalmaha kamida ninka zaahir ee noocaas reer baadiyaha oo soo lugeeyay nin reemi oo soo lugeeyay waad garan kartaa ma aragtaanay naqaska jirkiisa ka soo baxaya ayaa magaaladii madiina suuqeedii buu iska tagay badeecadu markaa watay waxbuu markaa u iibgeeyay waxna uu ka iibsanayay suuqa markaa nabigeenu kaleey salaatu wasalaam suuqii madiina nabigu soo galay wuxuu arkay ninkii zaahir oo meesha fadhiyo sii jeedo wax gadanaya markaa buu nabigu xagga dambu ka istaagay deedna labada indhood buu nabigu qabtay markaa buu war addoonkan aniga ale ayaa iga gadan oo iga iibsanaya ilaa zamanka addoommaa la iibin jiray moogtahay meelaha qaarkood way jireen waxyaabaha shareecadda islaamku ay horumarka ay shareecadda islaamku caalamka u keentay waxaa ka mid ah addoomihii la iibsan jiray diinta islaamka horeysa wixii oo dhan oo baabaysay markaasuu ninkii u cadhooday markaa ilaa nin xor oo carabiya oo la leeyahay waa addoon ayaa iga gadanaya oo iga iibsanaya u xanaaqay markaa mar alle markuu dareemay cidda gadaashiisa taagan inay tahay nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam laana gacanta nabi maxamed gacmaha way ka duwanayd anas bin maalik oo khaadimkii nabigeena ahaa waa kii lahaa maan taaban buu yidhi maro xariira oo ka jilicsan kafkii nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam maan urin buu yidhi carfi ka udgoon badan carfiga jirka nabi maxamed ka soo baxaya innaka maalintii magaalada markaad u dhaadhacdee suuqa aad ka soo noqonayso adigoo ma aragtaan khamkhamaya soo noqonayo oo dadna dharka markaa waad iska bedilaysaa walaakiin nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam mar alle markuu dhididaba jirkiisa isaga udgoon baa ka soo baxaya jirkiisa udgoon mar alle markuu arkay gacantan inay tahay gacantii nabiga jileeca carfiga soo baxaya uu yahay carfigii udgoonkii jirkiisa ka soo baxaya markuu gartay inuu nabi maxamed uu yahay shakhsigan ayuu dhabarkii nabiga markaa ayuu dhabarkiisii nabiga ku xamaaray laabtiisii markaa buu yaa rasuul allah oo haddii aad tiraahdeed addoonkaygii weeyaan ahan iibiyana aniga ayaa iga kaa iibsanayay buu yidhi nin faqiira oo miskiin oo reer baadiye ayaan ahay buu ka yidhi kaa bixi maayo layga kaa iibsan maayo buu ku yidhi markaa buu nabigu isku sii dhajiyey isaguna markaa buu yidhi lasta bikaasidin ma tihid shakhsi qiimo hooseeya bal anta cinda allaahi qaalib buu nabigu ku yidhi waxaa tahay shakhsi ilaah agtiisa qiimo weyn kula tahay buu nabigu ku yidhi